marka uu doonayo in uu horumar ku tallaabsado waxaana jirta in dalalka adduunyadu haatan ay xoog weyn ay saarayaan dhinaca horumarinta warshadaha marka laga yimaado dhinaca beeraha iyo dhinaca xoolaha intaba waayo waxa loo baahan yahay waxyaabihii beerahaagu ay soo saareen markaasi in aad u hesho warshado ku hagaajiya si markaasi wixii dabadda aad ka keensan jirtay ee cunto ahaa aad uga kaaftoonto warshada baastada ee magaalada tan Muqdisho waxa iyadu ay samaysaa baasto iyada oo ka samaysa waxyaabo abuur ama dalag ah oo ka soo baxay dhulkeena Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya dhinaca beeraha taasi markaasi ay ka samayso baasto oo suuqa aynu ku aragno baastadii ay soo samaysay warshadaasi oo aynu kaga kaaftoonay baastooyinkii kala gadisnaa ee aynu ka keensan jirnay dabadda iyada oo taasina ayna kaga bixi jirtay lacag adag oo aynu u baahanahay iyada oo la doonayo in markaasi waxyaabaha dalkeena ka bixi kara aynu dalkeena ka soo samaysano oo ka soo saarno dabadeetana aynu warshadaysano warshadu qalabkeeda si kala duwan ee casriga ah ayaa ay u isticmaashaa dhinaca kala saaridda iyo kala habaynta waxyaabaha ay ka samaynayso midhaha baastada dabadeetana makiinadaha ayaa qaybaha u gaara sidaasi u safa oo dabadeetana baasto ka sameeya dabadeetana markaasi ayaa baakooyinkii lagu shubaa dabadeetana suuqa loo iibgeeyaa oo suuqa inaguna aynu si sahlan uga gadanaa warshada burka iyo baastada ee magaalada Muqdisho waxa ay tahay mid la tartamaysa warshadaha casriga ah ee dalalka adduunka iyadoo oo soo saarta qaybo kala duwan oo baastada hadii ay ahaan lahayd baastada iyadoo dhaadheer iyo baastada kale ee makaroniga taasi oo aan waxba kaga duwanayn baastooyinka kale ee dabadda inooga yimaada